iyo la dagaalanka cadowga horarka ah mashruuca ashahaado la dirirka ah ee xasan sheekh horkacayo dhidibada ayaanu u siibi doonaa bixawli illaahi subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah wa acaza jundah وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم maantay oo ay taariikhdu tahay 16 rabiicul awal 1440 hijriga kuna beegan 12 oktoobar 2022 waxaanu ka warbixinaynaa malxamad ka mid ah malaaximta taariikhda jihaadka casrigan ka aloosan dhulkeenna muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaa saaka salaada subax kadib mujaahidiintu weerar ku qaadeen 2 xero oo ku taala duleedka magaalada Buuraburte kuwaasoo kale ah Yasooman iyo Beeryabal waxaa ku sugnaa labadaas xero ciidamo murtadiin ah oo isugu jira ashahaado la dirirkii dowladda ridada Turkigu ay soo tababartay iyo mooryaantii tuugada qowlaysatada ahayd dagaal qaatay muddo 1 saac ku dhow waxaa mujaahidiinta Allah subxaanahu wa tacaala fadligiisa u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan labadaas xero dhimashada horudhaca waa 117 murtad wax dhaawac ah oo aan xerada ugu tagnayna ma jiraan waxay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen 9 gaari oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman ee dowladda ridada Turkiga ay siisay waxay mahad dhammaanteed u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala keligiis isagaa ahal u ah in loo mahad celiyo isagaana guusha bixiya isagaana u gargaaray awliyadiisa ducafada ah ee aan lahayn awood aan tiisa ahayn ilaahay isagaanu tala saarannay isagaana nasri iyo gargaar ka sugaynaa waxaa hubaal ah in dhagar walba oo shaydaanka iyo awliyadiisu soo mareegaan inay daciif tahay fashilna ku dambaynayso insha Allah waxaan halkan ka diraynaa dhowr fariimood waxaan halkan fariin uga diraynaa ciidamada murtadiinta ah waxaan leeyahay waxaad xaaba u tihiin dagaal aanan kiina ahayn waxaad difaac u tihiin cadowga xaqiiqiga ah ee aanu ishayno waxaad doorateen inaad difaac u noqotaan gaalada dalkeenna ku soo duushay waxaad ogaataan inaad u dhimanaysaan beddelka askar Maraykan Turki iyo gaalada la magabaxday admisa waxaad tihiin ma liibaanayaal saliibiyiintu ku liibaaneen ha ku kadsoomina dal iyo dad baan wax u qabanaynaa waxaad ogaataan inaad ilaahay la diriraysaan diintiisa in lagu dhaqmana aad diidan tihiin waxaad isweydiisaan maxaa adiga iyo gaalka Maraykanka ah kan Ugandhayska ah iyo kan Itoobiyaanka isku saf idin geliyey oo gacala idinka dhigay waxaad maanta haysataan fursad aad Allah subxaanahu wa tacaala ugu tooba keeni kartaan ee Allah u tooba keena intaadan gacanta mujaahidiinta soo gelin furimaha waxaa la idin keenaa si meydkiina ay isaga soo fogeeyaan insha Allah hantida aad sidataan waxay qaniimo u tahay mujaahidiinta biidnillaah waxaan baaq u diraynaa qof kasta oo ku kadsoomay dhagarta cadowga qabaa'il ama afraad culimo iyo caamo midku doona ha ahaado
waxaan ugu baaqaynaa inay allah subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan. waxaana ummaddeenna uga digaynaa inaysan marnaba ku kalsoominin gardaamooyinka xasan sheekh iyo kooxdiisu ay maleegayaan. qofkii af ama addin uga qayb qaata diinla dirirka uu horkacaya xasan sheekh nabad kuma hoyanayo, meel kastana waannu ku beegsan doonnaa insha allah. waxaan tahniyad iyo bogaadin iyo salaan iyo mahadcelin u diraynaa qabaa'ilka garab istaagay mujaahidiinta. waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala khayr ha idinku abaalimariyo, khayrna ha idinkugu beddelo wanaaggiinna iyo garab istaaggiinna. waxaad muujiseen walaalnimada islaamka, waxaad u hiiliseen ku dhaqanka shareecada islaamka, waxaad ka bara'a qaadateen gaalada iyo gaalaraacyada murtadiinta ah. allah ayaa abaalkiina gudi kara. mujaahidiintuna ma ahaan doonaan kuwo abaal dhaca insha allahu tacaala. waxaad tihiin odayaasha saxda ah ee matala qabaa'ilka. matalaadda qabaa'ilkana waxaa asal u ah in diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu ilaaliyo. mooryaanta murtadiinta ah ee gaalaraacyada ah ma matalaan qabaa'ilka soomaaliyeed, gacalnimana kama dhaxayso. waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa ugaasyada, nabadoonnada, odayaasha dhaqanka iyo nuqabada islaamka, ganacsatada, culimmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee dalka iyo dibadda ku sugan ee muujiyey sida ay isu garab istaageen mujaahidiinta ugana soo hor jeesteen xamlada shareeca la dirirka ah ee uu soo qaaday xasan sheekh. gulufkan murtadiintu ay soo qaadayaan waa guluf colaadeed oo ay gaaladu wadato, shareecada islaamkana ay kula dirirayaan, dhaqaalana ay ku raadsanayaan, iyagoo doonaya inay boobaan hantida ummadda. waxaa loo socdaa waa in heshiisyadii hantida ee dhulkeenna lagu xaraashayey loo gacangeliyey shirkado gaalo ah. gaala dhaqaalo ma haysato. waxaa loo baxbaxsanayana waa in diinta la idinka leexiyo, markaad gumowdaanna sidii la doono la idinka yeelo, hantidiidana ay beelah u noqoto gaalada. gaalo idinma rabto. wax horumar ah oo wallaahi ay dalkan ka qabanayaanna ma jirto, walaa gurbad abaaro ayaysan waxba ka qabanaynin. waa kuwan u oynaya dadka tabaalaysan ayaan waddooyin u furaynaa, haddana xerooyinka xamar duleedkeeda ku yaal ayaa gaajo loogu dhimanaya. waxaa markhaati ka ah barakacayaasha ku sugan xerooyinkaas. xasan sheekh waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay qandaraaslaha ugu weyn ee xalaashaya khayraadka ummaddan badqabkeeda diineed iyo kan dhaqaale inuu ilaaliyo iskaba daaye, xitaa dhaqankii wanaagsanaa ayuu kala dirirayaa. heshiiskii ugu horreeyey ee uu saxiixo wuxuu dalka ku soo fasaxay qaadkii kenya, iyadoo awalba lala daalaadhacayay kii etoobiya. yay maslaxadii ugu jirtaa in heshiis qaad lala galo kenya? wuxuu doonayaa inuu raalli geliyo cadowga ummaddan, wuxuuna doonayaa in dhalinteeda uu daroogeeyo. xasan sheekh waxaad horar ku tahay ku dhaqanka shareecada islaamka. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan mashruucaada gaalnimada ah iyo boobka hantida ummadda aad ku hayso inaan kaa qaban doonno insha allahu tacaala, waana kaa guulaysanaynaa biidni illaah. dagaalka islaamka lala galo waa lagu jabaa. quwado idinka waaweyn ayaa ku jabay. waad jabaysaan ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala, oo waad jabaysaan. mujaahidiintu waxay ballan ku galeen inay difaacayaan diinta, kanaysan daalaynin difaaca diinta. waxay beeca allah subxaanahu wa tacaala kula galeen inay naftooda u hibaynayaan koryeelidda kitaabka allah subxaanahu wa tacaala, u nusraynta mustadcafiinta iyo la dagaalanka cadowga horarka ah. mashruuca ashahaado la dirirka ah ee xasan sheekh horkacayo dhidibada ayaannu u siibi doonnaa bixawli illaahi subxaanahu wa tacaala wa quwatihi. maalmaha soo socda ayaanana kala xukumi doona. ciribta dambena waxay u sugnaatay muttaqiinta. ugu dambayn waxaannu u mahad celinaynaa mujaahidiinta ku sugan huquurta islaamka, gaar ahaan mujaahidiintii allah subxaanahu wa tacaala uu gacantooda ku cadaabay cadowga. waxaan leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo. waxaad farax geliseen quluubta muslimiinta, waxaad kasbateen inay mar qura idiin wada duceeyaan muslimiinta mustadcafiintoodoo dhan. waxaad ku suntan tihiin malxamadda iyo sooman iyo beer yabaal
ee afka ciidda loogu daray gaala raacyada murtadiinta ah waxaad maanta dhiiggiinna ku qorteen sidqiga manhajka aad xambaarsan tihiin waxaad qaadateen amarkii allah subxaana wa tacaala ee ahaa in gaalada lala dagaalamo ilaa fidno iyo shirkigooda la waayo allah subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo mansilada ugu sarraysa ee jannatulfirdowsana allah subxaana wa tacaala ha idinku abaalmariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahuma wasalam wbaarak calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin